uu dhigayo heshiiska difaaca Maka haddii waddan ka mid ah saddexdan waddan la soo weeraro macnaheedu soo ma noqonaysa markaa in dagaalku noqon karo sunni iyo shiico يعني waxa weeyaan dagaalkan dhacay oo ka dhacay wadanka ka dhacay bariga dhexe faa'iido badan buu u keenay maarta wadanka la Pakistan Pakistan mar waxay la ciyaaraysaa wadanka barnaamijkan gebi ahaanba waxaynu ku soo qaadanaynaa maalinimadii jimcaha waxaa magaalada Maka si rasmi ah looga shaaciyey in iskaashi dhanka difaaca ay kala saxiixdeen wadamada Turkiga, Pakistan iyo Sacuudiga waxaana arrintan si rasmi ah qalinka ugu duugay madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga ahna ra'iisul wasaaraha Mohammed bin Salman iyo ra'iisul wasaaraha waddanka Pakistan Shahbaz Sharif tani waxay sidoo kale ku soo aadaysaa iyadoo sanadkii hore Pakistan iyo Sacuudigu ay kala saxiixdeen heshiis cayn kara qodobka ugu muhiimsan ee heshiiskan loogu magac daray heshiiska difaaca Maka waxa uu yahay haddii dagaal lagu soo qaado mid ka mid ah saddexdan waddan inay ka macno tahay in dhammaantoodba dagaal lagu soo qaaday haddaba isbahaysigan ma mid ku wajahan Iiraan ba oo sunnida samaysanayso mise Israa'iil ayuu ku wajahan yahay oo qatarta Israa'iil ayaa la dareemayaa waxaana soo baxaya warar kala duwan oo la xiriira Israa'iil arrintan inay si gaar ah isha uga hayso walwalweyn ay ka muujinayso waxay sidoo kale tani ku soo aadaysaa iyadoo muddooyinka ugu dambeeyay hadalaha xanaf leh ay hawada isu marinayeen madaxweyne Erdogan iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu walaadda Iiraan ayaa sidoo kale arrintan saameyn ay ku leedahay gaar ahaan weerarada dhanka xoutiyiinta uga imaanaya Sacuudiga iyadoo xootiguna ay sheegayaan in ay ka mamnuuceen maraakiibta Sacuudiga marinka Baabilmadam arrintan sidee u saameynaysaa gobolka sidoo kale saameynta caalamiga ah ee ay leedahay maxay noqon kartaa geeska Afrika sidee bay u saameynaysaa arrintan bacdama saddexdan waddan si gaar ah xiriir wanaagsan ay u leeyihiin Soomaaliya iyadoo toddobaadkii horena lagu dhawaaqay in Pakistan ay ka caawin doonto ciidamada cirka ee Soomaaliya taageerada iyo dibadhiska Turkigana Soomaaliya wuxuu ku leeyahay saldhigga ugu weyn ee military ee dalkiisa ka baxsan haddaba arrimahan iyo waxa ay ka macno yihiin ayaan waxaan la xiriiray oo imika toos qadka ugu jira Professor Cabdiwahaab Cabdisamad oo falanqeeya arrimaha caalamiga ah Professor aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa waqtigaaga inaad naga aqbashay inaad nala taxliiliso arrintan isla markaasna khibradaada iyo aqoontaada aad inala wadaagto aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa mar kale iyo sidoo kale barnaamijyada HBN inaad hadiyo goorale nagala soo qayb gashid waad ku mahadsantahay waqtigaaga marka ugu horeysa Professor Cabdiwahaab isbahaysigan ama heshiiskan difaaca ee Maka muxuu ka macnayaa بسم الله الرحمن الرحيم horta waa mahadsantahay Mawlid Maka agreement oo Maka lagu yeeshay magaalada barakeysan ee Maka lagu yeeshay ay ka soo qayb galeen saddexda waddan ee Sacuudiga iyo Pakistan iyo waddanka la Turkiga wuxuu ku soo toosay xilli yani arrinta bariga ay kacsan tahay aad u kacsan tahay waxaad ogtahay sanadkan bishii labaad ama February in dagaal uu ka qarxay yani bariga dhexe dagaalkaas oo dhaxay Iiraan iyo waddanka wadamadan liidaado wadamadan macnaa yani Mareykanka iyo Israa'iil oo dhinac ah marka dagaalka markuu wuxuu bedelay jawiga siyaasadeed ee bariga dhexe ayuu bedelay carabtana kuma noqonaysa yani xaaladda ay ku sugnayd dagaalka intuu dhicin ka hor oo February ka hor xaaladda bariga dhexe sidoo ahaa dibdima yani waxa weeye xaaladda kuma noqonayaan carabtu xaalad ka duwan bay ay carabtu gashay xaalad cakiran bay gasho tii hore ka duwan isbahaysigani waxaa wada galay saddexda waddan ee Pakistan iyo waddanka la Turkiga iyo Sacuudiga Pakistan waa waddan muslim ah oo haysta hubka nuclearka ilaa 170 wuxuu haystaa madax oo nuclear u haystaa waddanka Turkiga oo asna ururka NATO ku jiro iyo Mohammed bin Salman oo yani waxa weeyaan prime minister waddanka Sacuudiga ayaa wada galay markaad eegtid xaaladda sababta keentay inay agreement-kan galaan oo isu yimaadaan waxaa loo micnayn karaa dhowr xaaladood xaaladda ugu horeysa waxa weeyaan dagaalkii Iiraan iyo markuu qarxay Mareykanka iyo Yuhuuddu waa tii saldhigyo fara badan oo Mareykan uu lahaa la burburiyey
oo ku yaalay Bahrain oo ku yaalay Kuwait oo ku yaalay maartay wadanka la yiraahdo Qatar oo ku yaalay Saudi Arabia iyo oo ku yaalay Jordan inta waxa weeye waa la beegsaday macnaha waxa weeyaan Mareykanku wuxuu runtii awoodi kari waayay inuu maartay yani difaaci uu la galay wadamada Carbeed inuu difaaco marka waxaa soo baxday Mareykanku inuu difaaca kaliya wadanka Israel haba yaraatee aanu dan kale inuu difaaca wadamadan khaliijka taas marka waxay abuurtay marka jawi cusub iyo walaac cusub bay abuurtay oo ah in macnaha isbahaysigani Sacuudiga u arkaan in yani jiritaankooda iyo amnigooda uu ku jiro maadaama macnaha isku haleen waayay in amnigiisa uu sugo macnaha wadanka la Mareykanka oo marka uu ka doorbiday inuu difaaca wadanka la Israa'iil halkuu ka difaaci lahaa macnaha wadamadan Carabta ah ee saldhigga uu ku lahaa isla markaana lacagaha uu faraha badan u keenayay taa marka waxay keentay marka Sacuudigu inay isbahaysi cusub raadiyaan oo marka bedeli kara oo ka difaaci kara macnaha waxa weeyaan weerar kastoo Sacuudi lagu soo qaado midda kale wadanka la Turkigu wuxuu kamid yahay wadanka la Turkigu wuxuu kamid yahay isbahaysiga NATO ku jira to waad arkaysaa naftirkeeda iyada hadda runtii yani dhibaato hor leyso ay soo food saartay ayadoo wadanka la yiraahdo madaxweyne Trump uu dhowr ku celceliyay inay isdifaacanayaan wadan waxa faras daamaarta inuu yahay hadda yani inay sii jiri karaan ayaa runtii shaki badan ku jira maxaa yeelay wadanka Mareykanku waxa weeyaan waxaa jira qaa'ida nin oo macnaha yani filosofa ah nin macnaha yani waxa weeyaan adduunyada markay burburaysay markii yani Soviet Union uu burburay Soviet Union markuu burburay ayaa nin loo jiray Fukuyama ayaa wuxuu qoray book Fukuyama waa nin Mareykan ah laakiin asalkiisa Japanese ah marka Francis Fukuyama wuxuu qoray book la yiraahdo yani waxa weeyaan that's the end of the world adduunka halkan uu ku dhamaaday adduunka hal empire ayuu leeyahay halka empire ama halka imperatoriyadna waxa weeye wadanka Mareykanka ninkii markaa inkirsan awoodan Mareykanka cusubna yani waxa weeye ha isdaldalo yiri kadib waxa ka daba qaatay nin la yiraahdo Samuel Huntington book wuxuu la Clash of Civilization la qoray Clash of Civilization yani wuxuu leeyahay xadaaradii adduunka isku dhacaya marka wuxuu taxay marka 7 xadaaradood oo ay kamid tahay xadaaradda Kiristaanka xadaaradda yani Zionist yani xadaaradda Yahuuda xadaaradda Islaamka xadaaradda Hinduuga xadaaradda yani Buddhismka xadaaradda Communismka marka wuxuu leeyahay xadaaradihii adduunka isku dhacay uu leeyahay marka kadib waxa ka daba qaatay oo yiri ma jirto waxaas nin kale macnaha sidaan maartay iskoola ah wuxuu yiri yani cid kasto Asia wuxuu yiri adduunka aan ku noolnahay yiri 60% dadku dunida ku nool Asia ku nool yihiin buu yiri marka ninkii Asia xukuma ama controller ay adduunka controller marka waxa moodaa marka inuu qaatay yani ninka la yiraahdo Trump soo qaatay marka Europe waxa qiimo ugu dhisanta ma laha marka wuxuu rabaa marka inuu aado Far East Asia wuxuu rabaa marka inay yani Asia control marka Asia inta controlsha ayaa maanta dunida controleysa marka Asia marka wuxuu rabaa inuu kula loolama wadanka la yiraahdo China iyo wadanka la yiraahdo Russia iyo wadanka la North Korea ayuu rabaa marka inuu kula loolama marka saa darteed wuxuu dayacay macnaha NATO ayuu dayacay marka hadda waxa Europe wuxuu ka guranayaa qalabkii u yeelan oo military uu ka guranayaa marka halka waxa ka cad marka NATO inay sii burburaysa marka maadaama NATO marka ay hoos u socoto ay sii burburaysa marka wuxuu inuu isbahaysi hor leh uu sameeyo danka Turkiga marka wuxuu damcay marka isbahaysi sunni xoog leh inuu sameeyo marka waxa weeyaan heshiiskan maka taayo dabada ku hayaa marka haddii maanta lagu soo haddii maanta Israa'iil ay weeraraan ama weerar isku ay Turkiga ay weeraraan macnaha waxa weeye Turkiga Israa'iil maanta dagaal ka dhex dhaca definitely yani NATO ma taageeraysa wadanka la Turkiga waxay taageeraysaa Turkiyiin marka sataa marka dhinaca isaga riixaan maadaama ciidan horna ay leeyihiin regional power ay yihiin marka waxay marka go'aansadeen inay sameeyaan inay ku biraan oo ay sameeyaan isbahaysi sunni xoog badan yani waxa weeyaan dagaalkan dhacay oo ka dhacay wadanka ka dhacay bariga dhexe faa'iido badan buu u keenay maanta wadanka la Pakistan mar waxay la ciyaaraysaa wadanka la yiraahdo Mareykanka mar waxay la ciyaaraysaa wadanka China la yiraahdo xiriir fiican leeyihiin mar waxay la ciyaarayaan Russianka la ciyaarayaan marka waxay noqdeen marka waxa weeyaan wadan xor ah oo cid kasta oo danihiisa marka danahooda ilaalinayo in marka inay la xirtaan oo la ciyaaraan oo ay runtii waxay noqdeen
dad micnaha waxa weeyaan haba yaraatee aan xakamaynayn spicy ama qol ku jiro hal qol ku jiro aan la xakamaynayn micnaha waxa weeyaan China waxa weeyaan xiriir fiican ay leeyihiin Russia xiriir fiican bay leeyihiin Mareykan xiriir fiican ay leeyihiin intooduna way balance garaynayaan wadamada carabtan waxay rabaan maadaama dhaqaale fara badan iyo shidaal fara badan ay haystaan in micnaha ciidamo ay geeyaan si marka dhaqaale badan ay ugu sameeyaan marka spicygaas saas marka yuu runtii ku dhashay oo ku imaaday marka dhinaca kale marka laga fiirin waxa weeyaan waddanka la yiraahdo Iran hadda waxay noqotay waddan xoog leh noqotay maxaa yeelay hadda dagaalkan markuu dhacay Iran waxay noqotay waddan xoog badan oo runtii yani waxa weeyaan yani hadda aan la inkiri karin marka regional power ay noqotay maartay maadaama marka regional power ay noqotay wax badan ay tustay dagaalkan iyadoo xoog leh ka soo baxday marka sunniyiinta marka waxay leeyihiin haddii marka shiicadu ay ku xoogaysto soo ma dhici karto marka inay qabsadaan inay burburiyaan taasna cabsi noocaasna way ku jiraan wadamada carabta way ku jiraan si marka maadaama Mareykan uusan ka dhicin karin hadda Mareykan hadda ka dhicin waayey oo micnaha waxa salagii militariga la burburinaya garoomada diyaaradaha la burburinaya yani haamin shaalka yani la dhaawacaya yani Hormuz xirin haddaba oo marka ku soo rageen inay lacag ka qaadan ay ku soo rageen waxaas oo dhan markii isbiirsaday ayaa runtii waxa moodaa wadamada carbeed ayagana inay shaki fara badan iyo tuun fara badan iyo cabsi fara badan ay soo wajahday Professor aad baad mahadsantahay runtii waxaad na siisay xog aad iyo aad u faahfaahsan iyo gogol dhig fiican baad na siisay waayahay aan markan u daadegno qaybo kale dagaal baa socda sidaa sheegtay Iran inkastoo Mareykanka ay la dagaalamayso iyo Israa'iil laakiin wadamada carabta oo Sacuudiga uu ku jirana dhowr jeer ayaa la duqeeyay inkastoo dagaalka hadda ugu dambeeyay duqeymuhu aysan u badnayn Sacuudiga oo ay u badnaayeen Bahrain iyo Kuwait iyo Jordan laakiin xuutiga ku dhiisay Sacuudiga isahayaan xuutigana Iran baa taageerta marka haddii uu dhigayo heshiiska difaaca Maka haddii waddan ka mid ah saddexdan waddan la soo weeraro in la soo weeraro macnaheedu soo ma noqonaysa markaa in dagaalku noqon karo Sunni iyo Shiico ama dagaalka ay soo galaan Pakistan iyo Turkiga arrintaasi ma dhici kartaa siday kula tahay horta mid inaad ogaataa loo baahan yahay nimanka xuutiyiinta dowladda aqoonsan yahay ma qabaan waa non state actors weeyaan waxba kama duwana shiicada yani xisbullah iyo shiicadan ka dagaalantay macnaha waddanka Ciraaq waxba kama duwana marka nimankan waxay difaacayaan marka waddan kale uu ku soo duulo ay runtii difaacayaan wadamadan macnaha yani muxuu ahaa sheegay Pakistan iyo waddanka la yiraahdo Turkiyiinta taamid weeyaan midda labaad waxa weeyaan marinkan hadda ay ku fadhiyaan xuutiyiintu waa marin aad muhiim u ah waa baabul mabdab iyo badda cas oo macnaha gacanka cadmeed weeyaan marka gacanka cadmeed iyo runtii marinkan yani waa marin runtii aad muhiim u ah run ahaantii waxa weeyaan sida kaliya arrintan ay ku dhamayn karaan wada hadallo weeyaan inay la yeeshaan xuutiyiinta wada hadal la yeeshaan oo xisada marka la dumiyo weeyaan xuutiyiintu maha waddan jira oo hadda yani caalamku aqoonsan yahay oo maanta Sacuudiga laga difaaci karaa ma baahanba maxaa yeelay waddanka waddan la qoonsi ahaan lahaa ama Israa'iil ku soo duusho ama Mareykan ku soo duula ama yani waddan kale ku soo duulaha laakiin nimanka waa nin state actors weeyaan yani waxba kama duwana macnaha yani Hizbullah iyo nimanka la yiraahdo Hamas iyo nimanka la yiraahdo muxuu ahaa sheegay shiicadan macnaha yani ka dagaalamayso waddanka Ciraaq waxba kama duwana waddanka la yiraahdo Sacuudiga very remote weeyaan wax aad u fog weeyaan midda labaad nimankan la yiraahdo nimanka la Iiraaniyiinta wax dagaal ay u iclaamiyeen Sacuudiga hadda ma jiraba waxa kaliya duqeynayaan waxa weeyaan goobaha militariga ah ee salagida militariga Mareykanka ku leeyahay khaliijka duqeynayaan ilaa hadda Sacuudiga meela yani rayd degan ka duqeeyeen ilaa hadda lama hayo marka Sacuudiga baa wuxuu ku gaaray macnaha waxa weeyaan waddankiisa aan laga duulin oo waddanka la Iiraan aan loogu duulin waana sababta keentay diyaaradii faraha badnaa ee Sacuudiga yaalay in loo raro waddanka la Jordan haddana Jordan bay ugu daba tageen baad arkaysay marka hadda adduunku wuu isbedelay oo macnaha waxa weeyaan wuxuu ku socdaa xawli aad u adag buu ku socdaa jawiga caalamka dhan baa isbedelay hadda marka ma filayo in hadda yani spaysigan ay weerar ku qaadayaan nimanka xuutiyiinta lama aha waqtigan xaadirka waa gartay waayahay professor dhinac kale aynu ka eegna markaa in muddo ah tan dagaalka Gaza markuu dhacay xiriirka u dhaxeeya Turkiga iyo Israa'iil aad buu u xumaaday xiriirka ganacsi waa la joojiyay diyaaradihii mari jiray hawada Turkiga Israa'iil waa la joojiyay
madaxweynaha turkiga Rajab Erdogan dhowr jeer wuxuu ku eedeeyay Netanyahu in uu dab qori leh la wareegayo sida uu yiri Netanyahuna wuxuu ku tilmaamay Erdogan nin kaliya taliya sida hadalka u dhigay wuxuuna dhawaan sheegay in isbahaysi sida hadalku u yiri mayal adag oo sinniya oo dhismi doono ayna wajihi doonaan marka arrintu marka haddii aad sheegto inaysan u badanayn xuuti inaysan weerarayn oo arrintu ay noqon karto dowlad inay noqonayso marka ma dhici kartaa qorshahan Israa'iisha weyn ee isbalaarinta Israa'iil in looga hortagayo isbahaysigan taadab weeyaan horta hadafka ugu weyn ee isbahaysigani waxa weeyaan in laga hortago yani isbalaarinaysa waddanka la Israa'iil ay gobolka isku balaarinaysa ilaa yoomana hada lama garanayo xuduudaha waddanka Israa'iil halkay ku ogyihiin meesha ay ku ogyihiin lama yaqaan ilaa hadda ayagana madaxdooda ma sheegaan markii la weydiiyay xuduudka waddanka Israa'iil halkuu ka bilowda halkuu ku dhamaadaa ma ku sheegayaan laakiin qolooyinkooda madaxa mayalka adag xag jirka waxay ku leeyihiin wuxuu ka bilaabanayaa wabiga Niil waxa waa from river to the sea badana ku dhamaanaya ku leeyihiin marka macnaheedu waxa weeye Sacuudiga qaar kamid weeyaan Jordan waxa weeyaan Syria soo galaysa Lebanon baa soo galaysa ilaa Turkiga xuduudkiisu tagaya marka dadkan saasay markay aaminsan yihiin inay sameeyaan waxa loo yaqaan Greater Israel inay sameeyaan mana qariyaan madaxda waddanka yani Israa'iil ma qariyaan inay duulaan ku yihiin waddanka la Turkiga ma qariyaan marka waxay doonayaan markay shiicada ka taqalusaan inay weerar ku qaadaan waddanka la Turkiga way banaanka keeneenba waxa hadda ay qarinayaan ma baahanba waxa yani ay qorayaan yani wargeysadu ay qorayaan marka Turkiinta taa way ogyihiin marka waxay doonayaan marka inay sameeyaan space sunni xoog badan oo arrintan ka hortaga oo marka lagu difaaco dhulka marka islaamka lagu difaaco ay marka ku talagaleen inay sameeyaan waana sababta keentay inay marka isugu yimaadaan meesha ugu barakaysan macnaha waxay dadka muslimiinta ugu barakaysan magaalada ugu barakaysan weeyaan inay heshiis ku duugaan naftigeeda macnaha goonay leedahay maxaa yeelay heshiiskani wuxuu ka dhici lahaa waddan magaalada Riyadh buu ka dhici karay wuxuu ka dhici karay magaalada Islamabad wuxuu ka dhici karay magaalada Ankara marka sababta macnaha ay ugu doorteen in marka ka dhaca ayaa runtii waxa weeyaan waxay leedahay qiimo iyo astaan gooni ay leedahay oo macnaheedu yahay inay dhulkii barakaysnaa ee runtii xaram gudihiisa heshiis ku saxiixdaan taasoo macnaheedu yahay macnaha waxa weeyaan in heshiiskan uu yahay heshiis macnaha kal ilaa ka soo go'ay oo haba yaraatay wax qiyaana iyo waxa gardaamo ah haba yaraatay inay ku jirin oo marka waxa weeye magaalo barakaysan oo macnaha yani oo xaramka ah inay heshiiskan ugu saxiixay taa naftigeeda ayaa waxay bixinaysaa yani signal ama yani fariin bay diraysaa macnaha fariin bay diraysaa marka sidaa darteed macnaha waxa weeyaan inay maadaama yani Turkiga aysan difaacaynin يعني ururka NATO haba yaraatay haddii maanta diriraan waddanka la Israa'iil ma filaya macnaha NATO inay isoo gurmanaysa waddanka la Turkiga marka sidaa darteed Turkiintu waxay go'aansadeen in dadka Sunniyiinta ay isku keenaan mideeyaan cudud xoog leh ka soo saaraan kadib marka ay ka hortagaan gardarrada qaawan ee nimankan maartay yani waxa weeyaan Israa'iiliinta ku kacayaan waa gartay waa yahay meelo fiican baad noo taabatay aan eegno markan tan iyo aqoonsigii Israa'iil ay aqoonsatay Somaliland sidoo kale waxaa wadamadan hadda aynu ka hadlayno si weyn isha ugu hayeen arrintan iyo in Israa'iil suurtagal ay tahay inay ka samaysato baabalmadab ish ay ku hayso madaxweynaha Somaliland waraysiga la yeeshay intii Israa'iil uu booqanayana wuxuu yiri meesha ka saari mayno haddii Israa'iil ay u baahan tahay saldhig military marka sida u saameynaysaa arrintan guud ahaan geeska Afrika isla markaasna wadamadan xiriirka fiican leh dowladda Soomaaliya oo hadda samaystay iyaguna isbahaysi bal arrintan saameynta ay ku yeelanayso gobolka geeska Afrika inooga waran Israa'iil oo gacanka cadmeed ama baabalmadab galaangal ku yeelata ma arrin Soomaalida qusaysa miya mise waa arrin amniga wadamadan iyo gobolka qusaysa horta Israa'iil imaatanka ay imaaday gobolada waqooyi Soomaaliya hadda loo yaqaan Somaliland waxay noqotay national security threat bay noqotay oo yani arrin oo macnaha waa arrin waxa weeye amni qaran weeyaan waxay amni qaran u tahay waddanka Sacuudiga
waxay amni qaran u tahay waddanka la yidhaahdo Turkiga, waxay amni qaran u tahay waddanka la Bakistan. waana sababta keentay Bakistan maanta inay tababarayso ciidamada cirka ee Soomaaliya oo runtii lagu siiyey inay tababaraan oo hubeeyaan qaabeeyaan oo marka ay dib u dhisaan ciidankii macnaha cirka dalka Soomaaliya. waad ogtahay waddanka la Turkiga inuu ka furtay inuu ku leeyahay Soomaaliya military academy ugu weyn, waa the biggest military academy in Horn of Africa ayuu ku leeyahay. waddanka Sacuudiga waxa weeyaan isna waa waddan indhaha ku haya waxa weeyaan waxa maanta ka dhacaya Somaliland ka dhacay indhaha aad ugu hayo. marka saddexda waddanna waxay ka sameyn yihiin midnimada, wadajirka, qarannimada dhuleed ee Soomaaliya inay tahay midaan qaybsamin oo muqadas ah, inay tahay mid ah oo macnaha yani unity-ga iyo midnimada Soomaaliyeed inay tahay arrin muqadas ah ay runtii aaminsan yihiin. haddayna saa u dhigin waxa weeyaan waxayna saa ugu dhigayaan yani waxa weeyaan waxa ku jiro amnigooda qaranka ku jiro. marka sidaa darteed waa waxa ay ka shaqaynayaan saddexdan waddan si marka ay u sugaan amniga iyo maaragtay waxa weeyaan amniga macnaha baabal mabdab iyo waddan iyo gacanka cadmeed. maxaa yeelay haddii ay Israa'iil meesha fadhido waxa weeyaan Iiraan iyo Israa'iil waxa way isku dhacayaan. hadday isku dhacaan waxay saameyn marka ku yeelanaysaa gobolkii Horn of Africa oo dhan ayay saameyn ku yeelanaysaa. Djibouti ay saameyn ku yeelanaysaa, Soomaaliya ay saameyn ku yeelanaysaa, Yemeniinta ay saameyn ku yeelanaysaa, Eritrea ay saameyn ku yeelanaysaa. marka dhammaan wadamadan kulaala yani badda cas ayay runtii saameyn xoog leh ku yeelanaysaa. waa waxa marka ay ka shaqaynayaan saddexdan waddan oo runtii Soomaaliya yani u muujiyey macnaha inay ku qanacsan yihiin oo ay runtii ay doonayaan Soomaaliya oo mid inay arkaan. danahoodana waxay ka dhex arkeen Soomaaliya mid waa gartay dhinaca kale haddaynu ka eegno waxaa iyaguna isbahaysi dhowaan samaystay ama heshiis gaaray Israa'iil, Qubrus iyo Greega. waxaa kaloo isna jira Modi inuu dhowaan tegay Israa'iil. Netanyahuna wuxuu yiri waxaan samaysan doonaa isbahaysi ka kooban Israa'iil, Greega, Qubrus iyo sidoo kale Hindiya iyo wadamo Afrikaan uu yiri muusan carabaabin. marka ma dhici kartaa meesha isbahaysigan Sacuudiga, Turkiga iyo Bakistan ka samaysanayaan in la arko isbahaysi kale oo saameyn ay ku yeelato arrinta badda cas iyo gacanka cadmeed iyo baabal mandab? horta waddanka la Greega iyo waddanka iyo jasiiradda la Qubrus iyo waddanka la yiraahdo Hindiya inta way ka fog yihiin markaad fiirso badda cas aad ay ugu fog yihiin oo horta yani waxa weeyaan hadda yani geography ahaan yani kuma soo dhawooba. waddanka la Greega iyo waddanka Turkiga la yiraahdo markastaba tension baa ka dhexeeyey. waxay isku haystaan arrintan jasiiradda la Qubrus ay isku haysteen yani way kala qaybsan tahay qadca garan bay leedahay. dhinaca Turkiyiinta macnaha waxa weeyaan waa dowlad, dhinaca Greegana waa dowlad. dhinaca Turkiyiinta waxaa aqoonsaday Turkiya iyo Bakistan baa aqoonsan oo dowlad ahaan u aqoonsan. marka tensionka u dhexeeya ama xiisada u dhexeysa Turkiga iyo waddanka la yiraahdo muxuu ahaa Greega wax hadda cusub wax uguba maaha, wax cusub maaha, wax la filayo. laakiin wadamadan way ka fog yihiin juqraafi ahaan markaad fiirisid yani gacanka cadmeed way ka yara fog yihiin. waddanka Hindiyana waxa runtii waxa weeyaan wuxuu loolan siyaasad kula jiraa waddanka la Bakistan ayuu loolan siyaasad kula jiraa. marka waxayna runtii yani ay competition kula jiraa waddanka la Bakistan. marka waana sababta keentay markii Modi inuu martii yani runtii space-ga ku biiro. waa hagaag Professor Cabdiwahaab Cabdisamed oo si toosa barnaamijka inagala qayb qaadanayay. aad iyo aad baad professor u mahadsan tahay waqtigaaga, waana kaga mahadcelinaynaa falanqayntan xiisaha leh ee aqoonta iyo sidoo kale xogogaalnimada ku dhisan. waqtigaaga mar kale aan kaaga mahadceliyo. inta ayaan daawadayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii. waana ku mahadsantihiin mar kale daawadasha barnaamijka. professorkuna waa u mahadsan yahay. mahadsanid Mawlid.